waayahay kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa inaan idin la wadaago wararkii ugu dambeeyay iyo waliba sidoo kale qorshayaasha ee ku aadan kulamadii xalay magaalada Nairobi ee ku dhaxmareen ra'iisul wasaaraha dalka iyo waliba sidoo kale madaxweynaha wadankaasi ee William Ruto iyadoo halkaasi inta badan looga arinsanayay xaaladda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale qorshayaasha culus ee waqtigan la joogay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo waliba sidoo kale maamulka Jubbaland ee markaasi ay ku dhaxaysato maxaase xalay ka soo baxay maxaase la isla meel dhigay maxaase laga wada hadlay dhammaan macluumaadkaasi ayaan rabaa inaan halkan kugula wadaago haddii ay tahay markii ugu horeysay oo ku soo gaaro fadlan like gare share gare oo meel dheer nala gaarsiin qaybta hoose ee faalada commentiga ayaad inagula wadaagi kartaan waayahay soo dhawaada saaxiibayaal wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaana markaasi safar shaqo u jooga magaalada Nairobi ee wadanka Kenya sida xogaha hore ee la helayba ay sheegayeen in markaasi ra'iisul wasaaruhu kulankiisa ama safarkiisa ugu muhiimsan uu yahay in markaasi Axmed Madoobe iyo waliba sidoo kale waa khilaafka culus ee dawladda dhexe Soomaaliya iyo waliba sidoo kale markaasi maamulka Jubbaland oo xoog u sii cuslaanayay muddooyinkii ugu dambeeyayna ay tahay in markaasi xal buuxa laga gaaro laakiin waxa ay sida ay sheegeen wararka hoose aan helayno ayaa tibaaxaya in markaasi wali Axmed Madoobe uu markaasi si weyn u diidan yahay inuu tago magaalada Nairobi ee wadanka Kenya iyadoona markaasi kaliya ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisu halkaasi ay joogaan walow ay markaasi si sax aan loo xaqiijin kareenin warka isaga laakiin waa sida wararka ee hordhaca ee aan helayno ay sheegayaan maadaama waqtigan la joogay dawladda Soomaaliya ay qorsheynaydo in wixii wada hadal lagu waayo military markaasi loo adeegsan doono taasi oo dhibaato weyn ku ah dawladda iyo waliba sidoo kale bulshada Soomaaliyeed inteeda kaleba iyadoona waqtigan la jooga Soomaaliya aysan u baahnayn in dagaal ay gasho laakiin wax kasta ay xaaji iyo wada hadal markaasi lagu qaadi karo Axmed Madoobe ayaana u muuqda mowqifkiisa ku aadan si joogista xukunkiisa inuu ku sii adkeysanayo iyadoo kulanka xalay markaasi uu ku dhaxmaray madaxtooyada ee markaasi wadanka Kenya gaaraan magaalada Nairobi caasimadaasi iyadoona markaasi looga arinsanayay qorshaha Axmed Madoobe uu damacsan yahay iyo waliba tan iyo intii uu joogay oo aanan wali waxba iska bedelin loona arkayo in waqtigan la joogay ay tahay mid khaldan ama markaasi waa markaasi dawladda Soomaaliya aysan ku qanacsaneyn si joogistiisa iyo waliba sidoo kale markaasi inuu halkaasi sii joogo walow wararka qaarna ay sheegayaan in markaasi Axmed Madoobe uu u muuqdo waqtigan la joogay in ay tahay xilligii markaasi uu iskaga tagi lahaa Soomaaliya marka la joogo siyaasadeeda maadaama muddo in ka badan sanadooyin oo halkaasi soo xukumayay qorshaha dawladda oo ahaa ama talaabada dawladda oo ay rabtay ee ahaa in markaasi dalkan uu aadi karo doorasho qof iyo cod isaguna si weyn markaasi u qaadacay misana ugu soo horjeestay laakiin wararka qaar ayaa sheegaya kulanka xalay albaabada u xirnaayeen oo ay markaasi sida weyn looga arinsanay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan dawladda dhexe waliba ee markaasi maamulka Jubbaland ayaana u muuqata waqtigan la joogay in ay sii xoogeysanaydo oo walibana markaasi siyaabo kala duwan looga hadlayo wili si rasmi ah looma soo saarin ama war saxaafadeed lagama soo saarin ama go'aan ku aadan oo dawladda Soomaaliya dhankaasi ka keentay maadaama Axmed Madoobe si weyn markaasi xiriir dhow u leeyahay Kenya dadka ilaaliya xitaa u badan yihiin ama markaasi ciidamada nabad ilaalinta u jooga wadankaasi ama markaasi magaalada Kismaayo ay u badan yihiin Kenyaan iyadoona markaasi lala kaashanayo misna markaasi looga arinsanayo xaaladiisa wadanka Nairobi ee Kenya wixii warar kale ee ka soo baxa xogtaasi iyo waliba inta ra'iisul wasaaraha halkaasi uu joogo safarkiisa iyo qorshaha ku aadan iyo wada hadallada Soomaaliya iyo waliba sidoo kale maamulka Jubbaland gaar ahaan waa markaasi dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland bartaneedu kula wadaagi doona saaxiibayaal lidkina muuqaalka sii share gare meel dheer nala gaarsiin qaybta hoose faalada commentiga aad nagu wadaagi kartaan waxaan idinka codsanaynaa inaad ku soo biirtaan barteena aad ka mid noqotaan saaxiibadeena sida maalinlaha wararkeena halkan ugu la socda mahadsanidin